وما أرسلنا naxariistaasaan u baahannahay maanta islaamnimadu inay naga noqoto dhaqan ujeeddo kale maaha waxa lainoogu yeedhay nimanka akhyaarta ee nagu dadaalay ee kulanka inii qabtay ee culimmadana meelo badan uga yeedhay ku soo casuumay inay nila hadlaan wallaahi ujeeddo kale ma leh waxay leeyihiin keliya siday diintani ay nolosheenna u timaadaa bas السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني ما شاء الله إلهي بانكو حمدنا مر والبع نعم فربضان بإلهي دوشنا أودغي نعمت إلهي نسيي نعمد أقويني والهداية وحنونك ويان إن إلهي كو حنونيو وطريق حق إلهي أوكو مريو وقف مسلمة أو قمان أو توصن إلهي أوكادغو نعمت أدونك دوشيدا إنت اللجوغ إلهي أوبحيو ونعمد أقوين ويان inay nicmadaasi nicamta ugu weyn tahayna waxaa caddaynaysaa salaada markaan tukanayno keena faqiirka keena qaniga keena lab iyo keena dhidig keena madaxa iyo keena mijaha su-aasha keliya ee salaada dhexdeeda qofka loo ogol yahay ilaahay inuu ku weydiisto waa su-aal waliba ku soo aroortay suuradda faatixada dhexdeeda سورة فاتحتنا وحويان والركن من أركان الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام وكيلها لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن سورة الفاتحة قفك آنا أخر السنب والنبي يقول صلاة مله وصلاة ما أهانن صلاة داس مركز سورة داسي يادا مقعي قدام باب الصلاة سؤال شكل يكسو أرورتي وحويان markaan suuradda aan akhrisanayno waa ihdina asiraata almustaqiim ilaahu dariiqa mustaqiimkaaga ilaahu nagu toosiyo na mari taasaa markaa caddaynaysa in shayga ugu qiimo badan ee ilaahay bini aadanka adduunka dusheeda uu ku siiyey inay tahay alhidaaya hidaayaduna wax kala maahin waxa weeyaan waa hanuun oo ilaahay caza wajalla ayaa mulkiyo oo ilaahay baa haya hanuunkaas qofka ilaahay khayr uu la rabaa ilaahay nuurkaana qalbigiisa uu yeelaa hanuunka ilaahay baa bixiya xataa malaa'igtu ma bixin karto nebiyaduna ma bixin karaan oo nebi haddii uu milkiyey hidaayaduu nebi bixinayo nebi nuux calayhi salaam inankiisa iyo xaaskiisa ayuu siin lahaa nebi ibraahimna aabbihii buu siin lahaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaamna adeerkii abaa aalib buu siin lahaa laakiin hidaayadaasi waa hidaayatu tawfiiq ilaahay baa hayo ilaahay baa mulkiya oo nebigeennu calayhi salaatu wasalaam adeerkii abaa aalib oo nebigeenna soo gacan hayay oo soo koriyey oo korsiinta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qayb weyn ku lahaa markuu bukooday ee xanuunku uu riday ayuu nebigu ziyaarto uu u galay waxa uga sii horreeyay oo la joogay markaa abujahal calayhi lacna deedna markaa buu nebigu dhinac buu ka fadhiisto wuxuu ku yidhi yaa cammi qul laa ilaaha ila allah uxaaju laka biha cinda allahi yowma alqiyaama
adeer waxaad ii tidhaahdaa hal mar keliya aniga imaqashii oo waxaad tidhaahdaa laa ilaaha ila allah dheh maalinka qiyaamahan aniguna maaragtaane kuu dacwin doonaaye oo ilaahay caza wajalla hortiisa ayaan ka marag furi doonaa inaad adduunka dusheeda kelmadda aad ku soo tidhi lianna nebigeenna calayhi salaatu wasalaam xadiis kale waa kii nebigu lahaa malag baa ii yimid oo igu yidhi laba mid kala dooro ayaa ilaahay ku leeyahay inay ummaddaadu kala badh ay jannada gasho iyo in shafaacadda lagu siiyo deedna nebigu waa kii lahaa shafaacadda ayaan qaatay oo shafaacaddeedu waxay gaadhi doontaa qof allihii qofkii adduunka dusheeda ku soo ashahaatee laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah sala allahu calayhi wasalam ee islaamnimada soo galay waxaan u helayaa buu nebigu leeyahay qiil aan qiyaamaha ugu dacwin karo taabuu markaa nebigu adeerkii abu aalib uu ku lahaa kelmadda aniga hal mar keliya imaqashii maalinka qiyaamahan kuu shafeecad qaadi doonaaye deedna nebigeena sala allahu calayhi wasalam adeerkii waxaa ag fadhiyay abujahl calayhi lacna fircawna haadihi lumma ayaa markaa ku yidhi abaa aalibow ma diintii aabbayaasha aad ka dhaxashay ee miladii cabdulmuطalib intood ka leexata maad moxamed maanta warkiisa aad qaadanaysaa deedna markaasuu iska aamusay abu aalib haa iyo maya midna ma odhan deedna nebigu calayhi salaatu wasalaam haddana uu soo jeediyo wuxuu ku yidhi kalimatan uxaaju laka biha cinda allahi yowma alqiyaama hal mar adeer aniga kelmadda imaqashii maalinka qiyaamahaan ku shafeecad qaade hadalkii u dambaysay abaa aalib uu ku hadlay wuxuu ahaa inuu yidhaahdo calaa millati cabdilmuطalib baan ku dhintay moxamedow aniga iska kaydaa deedna naftiina way ka dhacday labadaa indhood isagoo nebiga ilintu ay ka daadanaysa buu nebigu ka kacay halkaas maxaa yeelay adeerkii u jeclaa nebigu kursiintiisa iyo maaragtaana ilaalintiisa iyo raacayadiisa qayb xoogle ayuu markaa abu aalib uu ka soo qaatay khayrkuu nebigu la jeclaa oo hidaayadda iyo naxariista ayuu la jeclaa laakiin hidaayadda nebi maxamed ma hayo ilaahay baa ku yidhi innaka laa tahdi man axbabt walaakina allaha yahdi man yashaa wa huwa aclamu bilmuhtadiin kaad adigu aad jeclaata ma soo hadaynaysid baa nebiga lagu yidhi waa hidaayadda tawfiiqda waafajinta ilaahay baa iska leh ka aan doonna annaka hadaynayna baa ilaahay yidhi caza wajal kuwa hanuunayana annaka naqaana baa ilaahay nebigiisa uu ku yidhi marka hidaayaddaas ilaahay baa milkiyey cid kale ma hayso oo dee nebi maxamed hadduu milkin lahaa hidaayadda bilaalow xabashiya hidaayadda ma heleene abaa aalib oo qurayshiya buu nebigu hadayn lahaa abulahab oo qurayshiyoo nebiga adeerkiya buu nebigu hadayn lahaa hidaayadda haddii ay cid milkinayso een maaragtaane dee nebi ibraahim calayhi salaam aabbihii gaalnimo kuma dhinteene bal hidaayadduu ku deeqi lahaa ee uu siin lahaa marka hidaayadda ilaahay baa haya caza wajalla kuu doonana ilaahay isagaa hanuuniya kuu doonana ilaahay tabaaraka wa tacaala isagaa baadiyaya oo lumiya muuse binu cimraan waa nebi muuse calayhi salaam oo 30 sannadood aqalka fircoon ku barbaaray oo ku korayna ilaahay uu hanuuniyo waxa uu ka dhigay nebi rasuulah oo la yidhi waliba wakallama allaahu muusa takliima waa nebiga keliya adduunka dusheeda ilaahay caza wajalla hadalkiisa ku maqlay buu ahaa nebi muuse calayhi salaam nebi muuse oo aqalka fircoon ku barbaaray ka hanuuniyey ee risaaladda u doortay inuu nebi rasuula uu noqdona waa allaahu rabbulcaalamiin weeyaan waxaa kaloo hidaayadda aanan nasiib u helin ninkii la odhan jiray saamiriy muuse binu dafar baa isagana la odhan jiray buu yidhi ibnu cabbaas waa ninka reer bani israa'iil ahaayee malakuljibriil suuraddiisii malakiga intuu ku arkay haddana ilaahayna rumayni waayey rasuulkii loo soo dirayna raaci waayeyna kaana hadday ay noqonayso hidaayaddu in qof uu hadeeyo aragtida jibriil uu ku hanuuni lahaa limaada jibriil waa malak ilaahay baa tabaaraka wa tacaala qaamad iyo quwad iyo taaqad ku abuuro siiyey ninka malagaa arkayna ilaahay hidaayadda kumuu deeqine ilaahay hidaayadda waxa uu ku deeqay ninkii guriga fircoon ku barbaaray ayaa ilaahay hidaayadda ku galladaystay marka hanuunka ilaahay baa bixiya innaka ilaahay tabaaraka wa tacaala waa inoo nicmeeyey oo hanuun baa ilaahayna siiyey laba xaas oo qur-aanka lagu sheegay daraba allaahu maalan liladiina kafaruu imra'ata nuuxin waimra'ata luutin kaanataa taxta cabdayni min cibaadina saalixayn fakhaanataahumaa falam yugniya canhumaa min allahi shay'a waqiila idkhula annaara maca addaakhiliin wadaraba allaahu maalan liladiina aamanuu imra'ata fircawn
إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. والله بقي سوء عجيبة في سورة التحريم بيكوتها على أواخر كذا. والله بقي سوء عبر قادة الشله أول الربعين كو عبر قادة تد أود إسلام ماذا يهداية إلهي كوكو ديقو كسيي أدو آنو ويديسن با إلهي قف مسلم إلهي وكادقه وإن النعمة إلهي تبارك وتعالى آنو قم هذنا أون قدرنا. والله بحاس لبدو باللبن النبي بكوهوس نولايين مدوا زوجة نوح عليه السلام مدوا زوجة لوط عليه السلام لبدا النبي حاسس كودينا إلهي هداية البابدي دي وأكحدي قال لما أي كل نولايين يكو قال لما دا قرسنايا أي هوستا قال لما كو قرسنايين النبي دن وي خائمين وين خيانيين نارتا كواريا وندبا إلهي لو كو نارتا كواريي ayaad ma oogatihiin naarta la galaba kuwa ku nidhi baa Ilaahay yiri halka la yiri taaqiya fir'aun oo garanaysaan oo quraanka lagaga waramay oo 26 juz oo quraanka Ilaahay ku taala ayaa nabi Muuse calayhi salaam iyo fir'aun wixii dhaxmara lagu soo celceliyay fir'aun oo kibirkiisa iyo qooqiisa Ilaahay quraanka uu noogaga waramay fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la ninka dadka intuu u yeedho fagaaraha soo joojiyay ku yiri rabbigii koreeyay sareeyay waa aniga aqalka ninkaasi uu ku dhex nool yahay gabadhii ku nooleeyna Ilaahay azza wa jalla hidaayada Ilaahay ku galladaystay oo Ilaahay islaamnimadu qalbigeeda ku sharxay waata ku ducaysanaysa eele rabbi ibn li indaka baytan fil jannah ilaahu aniga guri agtaada iiga dhismay ku tir agtaada hatta ma qalat anbiyada agtooda iiga dhismay orana waxay tiri إله وحرب جنة إن أكتاد أقل عنك أديك دستا وكي النبي لها عليه الصلاة والسلام إذا سألتموه فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنها تتفجر أنهار الجنة وفوقها عرش الرحمن حدد إلهي ويدي سنيسان ومر بإلهي أدبر يسام النبي عليه الصلاة والسلام جنة فردوس الليلة إلهي ويديستا maxaa yeelay jannooyinka ayada ayaa ugu sarreysa ayadana ugu dhaxayso waa bartamaha ku toosan tahay arshiga rahmaanka ayaa saqfigeeda ah wabiyalka jannada maro oo dhan ayada ka bilaabmaan ka burqamaan buu nabigu yiri gabadha ilaahay waxay weydiisatay rabbi ibn li indaka baytan fil jannah tarabbat fi bayti fir'aun wa 'ashat fi bayti fir'aun wa ra'at tuqyana fir'aun kibirki fir'aun bay u soo jeeday arkaysay مجتمع يكون أحبر بارت ومجتمع نينك هايست أوليه أنيقا أيا ربي ما علمت لكم من إله غيري إله أنيقا أنا هينو كلا نوغا هيوني نيوغا هي مجرتي أنيقا إلهي عبود الشخص الصدالة قابد قريقا نينكا ودقينها كبر بارتي إلهي عز وجل قلبي إذا وحو كسر حي إلهي جريتاكي سنو هي حق نبي موسى عليه السلام رسالة دي حق إنay tahay ba qalbigeeda lagu sharxay waxayna ku ducaysanaysaa ay leedahay rabbi ibn li indaka baytan fil jannah ilaahu aniga waxaan ku weydiisanayaa agtaada guri ilaahu iiga dhis wanajini min fir'auna wa 'amalihi fir'auna ilaahu iiga fogee amalkiisana ilaahu iiga dheere gaalka ilaahu aniga iiga dheere gaalada acmaashoodana ilaahu iiga dheere gaalku uu ku taasiirin uu ku saameyn مجتمع ويس السامعيان هذا المجتمع مسلم آل هيستو وحكى لها كوبا دلنا وجو إسلام ماذا كو خير بدن مجتمع مسلم كي أشهادنا يا ولو دين تودو بهالنقطة دين ضعيفة هالنقطة لكن قال إن تكون نحن ولا مسلم قد كو أجن ولا تو هبا كو أجاجوتي دي هبا كو أجرفاد دي مسلم كأشهادنا يا مرنا قال لما أنا لو قبغين إنه قالوا بو إن تكون أجن ولا تا يا كو خير بدن لذلك قبضها وحي لهي فرعون كليه يقفوقه ملا وحي لهي عمل كيسن إله يقفوقه ونجني من القوم الظالمين قوم كاسنا والظالمين إله إياكنا يقدر بيتي إلهي تبارك وتعالى وقادر على كل شيء وصدو دون يالا وإلهي أسماء إلهي وحاكم الهادي هنونية وإلهي عز وجل إله عز وجل موسى السامري إلهي هداية ومقدرين وانك جبريل أركي موسى بن عمران وقصر فرعون كورينا إلهي عز وجل أوهنوني مؤمن
nebi rasuuloo kaliimullah baa laga dhigay labadii haween ee nebi nuux iyo nebi luud ay kala qabeen ee laba nebi hoostooda ku barbaartayna albaabka hidaayadda looma furin tii qasriga fircoon ku barbaartayna aasiyatu bintu masaaxim weliba waxaa nebiga loo bishaareeyey inay noqonayso xaasaska nebi maxamed jannada loogu dhisi doonay ka mid noqonaysa ilaahay hidaayadda isagaa bixiya innaka ilaahay waa inoo nicmeeyey dadkan khaasatan afka luqadan soomaaliga ee ku hadlayo fahmaayo ee ku hadlow si gaara ilaahay ugu xamdino muslimiin baa ilaahay naga dhigay aabbayaasheen muslim walaalaheen muslim awowyaasheen muslim ajdaaddeennu muslim ciddaad ka soo jeedda waa muslim saxaabatu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nicamta khaaska innaka inoo khaaska wallaahi iyaku maynan helin saxaabada rasuulka siiradooda markii loo noqday isagii hadduu muslim noqdo aabbihii gaalnimadu ku sugnaa khaalid binu saciid baa ka mid ah saxaabiga loodhan jiray allaha raalli ka noqde khaalid ibnu saciid wuxuu ku manaamay asbaabta uu ku islaamay waxaa ka mid ahayd isaga oo wuxuu ku manaamay aabbihii oo naar ku dhex jira oo inankiisana soo qaadanaya oo soo jiidaya oo naarta ku soo tuuraya uu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaamna halkaa guntiga uu ka hayo deedna markaasaan hurdadii ka kacay buu yidhi argagax abubakar sidiiq baan u sheegoon ku yidhi abubakarow maxamed adigaa rumeeyo raacee bal manaamkanaan arkay ii cabir baan ku yidhi buu yidhi markaa ii cabir riyada wanaagsaneed ku riyootaa dadka khayrka aad ku tuhmaysaa loo sheegaa waa waxay kugu cabbiraan laakiin waxaa la yidhahdo xulumka hawaawiga ee naxdinta badanla lama sheego waa sunnadii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam deedna saxaabigaasi u ordo wuxuu u sheegay abubakar sidiiq baa ku yidhi manaamka aad aragtay waa xaq aabbahaa naar buu ku dhacayaayoo gaalnimadaa uu ku jiro kufriga iyo shirkigaabuu ku dhimanayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaamna diintan uu inoola yimid waa diin inagu leh naarta ha ka badbaadaane aniga isoo raac buu nebiguna leeyahay wa ana aakhuduhum bixujazikum min annaar wa antum tufallituuna min yadaya anigoona guntigaasaan iniga hayaa halkaa dhexirka ayaan ini hayaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam si aad naarta ugu dhicin baan iniga xajinayaa iniguna waad iska kay gundhanaysaan oo naartaad ku hoobanaysaan buu rasuulku yidhi deedna riyadii markuu u sheegay buu yidhi wallaahi manaamkaa lagu tusay waa xaq aabbahaa naar buu ku dambayni doonaa naar buuna ku dhici doonaa gaalnimuu ku dhimanayaa adigana nebi maxamed uu kuu gurmanayaaye han kuu geeya kaalay oo iska soo islaam oo nebi maxamed ku dayay buu yidhi raac waa hagaag uu soo kaxeeyey deedna markaa buu nebiga u keenay calayhi salaatu wasalaam khaalid ibnu saciid markaa nebiga hortiisuu ku islaamay aabbihii baa maqlay markaa saciid binulcaas baa maqlay in inankiisii uu diinta muxamed u galay waa makaa la joogaa dadka muslimiintu waa fara ku tiris weeyaan qof alihii qofkii muslimee islaamnimada ilaahay ku galladaysto markaaba waa la cadaabayaayo waa la dhibayaa walaalihii buu u diru yidhi soo qabta waa la qabtay afarta addin baa laga xidhay biyihii baa laga dhabay baadkii baa loo diiday waxaa lagu qasbayaa inuu gaaloobuu ridoobo walaakiin isagu waxa uu leeyahay may laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulu llah sala allahu calayhi wasalam deedna marka uu kari waayey uu arkay ninkani inuu diinta islaamka uunan ka noqonaynin ayuu yidhi xarkaha ka sii daaya magaaladaa maka ha iska galo wejigiisa ha iga qariyo meelaan joogayuuna soo joogsan baadna siini mayno biyana waraabin mayno harraadiyo ooniya gaajaha u dhintee markii sidaa aabbihii uu ku yidhi ayuu yidhi aabba haddaad adigu quudkaad haysatay aad iga mancisatay aniga ilaahay baa i quudinaya buu ka yidhi allah muslim jadiida oo shalay islaamay ayaa markaaba qalbigiisa yaqiintu ay ku dhibcaysaa oo ku leh hangaajoodo aabbahay han waayo walaalahay han waayo qaraabadayda han waayo waxay dhibaatay soo gaadha ha isoo gaadho laakiin mar haddaan muslim anu aan ahay islaamnimada waan ku qanacsanahay diinta islaamka igu filan oo ideeqi doonto weeyaan haa diinta islaamka ha kugu filnaato ayuha almuslim ha eegin hunguriga nin muslima oo dadkeenna ayaa maalin maqlay inuu dhoofayo waddannada reer galbeedka marka ayuu rabaa inuu ubadkii reerkao dhan u qaado markaasaan salaamnayo salaamu calaykum maa sha allah bal warranoo waxaa igu maqala inaad dhoofaysidee markaasuu hi haa waan dhoofayaa xaggee tegi dhulkaas maxaa jira wuxuu idhi qaaradan afrika la idhaayo oo layskuma hadlayn karo buu idhi nabadgelya ma taallo tacliin ma taallo
caafimaad ma yaallo shaqa ma taallo system ma shaqeeyo kolba ninka meesha haystoon baa dadka ku jooga marka wadannada horu maray ee nabadgelyadu ay taallo ee dhakhtarka iyo tacliinta fiican leh ayaan ciyaalka mustaqbalkooga la raadsanayaa buu yidhi u fiirso khaalid ibn saciidna eeg shaluu islaamay aabbihii baa ku leh baadiye bii ku siin maayo markaasuu u jawaab uu leeyahay carabka maaha waxa jawaabaya waa caqiidada ayaa jawaabaysa iimaanka qalbigiisa ku jira jawaabayo ku leh aabba haddaad adigu baadkiiyo biyahaagii aad iga mancisatay aniga ilaahay baa iquudinaya oo isiinayay buu ku yidhi khaalid ibn saciid uu yimid nebigu u yimid calayhi salaatu wasalaam waa markuu nebigu joogay daartii arqam ibn alarqam halkaa buu nebigu xataa masaajidka xaramka looma ogolayn halkaa buu nebigu saxaabadiisa qur'aanka makiga maka ku soo degay ee aayaadka qur'aaniga makiga iimaaniyaadka aakhirada ka warramaya iyo qisasul anbiyaa iyo wal umam as-saabiqa ayuu markaa nebigu dushooda ku akhriyaa iimaankooga ayaa markaa dhismaya yaqiintoodii caqiidadooda ayaa la dhisayaa u tarbiyadaynaya nebigu calayhi salaatu wasalaam deedna maalin maalmaha ka mid a wuxuu maqlay khaalid aabbaha waa sankaraad deedna markaa buu soo socday aabbihii oo sankaraada buu dul yimid odaygii dhalay markaa buu dul joogsaday odaygii baa sidaa u eegay ma khaalid baa ha aabba waa khaalid weeyaan diintii maxamed ma ka soo noqotay markaasuu yidhi may aabba may kama soo noqon kamana soo noqonayo mid iga qor buu ka yidhi mid iga qor haddii xanuunka aan ka kaca buu yidhi maanta ilaaha muxamed maka lagu caabudi maayo buu ku yidhi khaalid ibnu saciid wuu maqlayaa hadalka gaalnimadu aabbihii uu ku manaamay inuu naar ku dhacayo qiblada intuu u jeestay ayuu yidhi samada intuu eegu gacmaha cirka u taagay buu yidhi ilaahow aabbahay mowqifkiisa weli ma bedelina halkaasoo ma taagno ilaahow xanuunka ha ka kicin ilaahu ku qaad buu yidhi isagana u habaaray xanuunka inuuba ka kicinba ilaahu ku qaad ilaahay waa ku qaaday xanuunkii gaalnimadiisii jahannamuu la tegay walciyaadu billaah waxaan ka wadaa saxaabada rasuulka radia allaahu canhum islaamnimada hadduu saxaabigu muslim yahay isaguna maaragtaane aabbihii iyo hooyadii iyo dadkiisu gaalnimada ku sugnaayeen abaa hurayra radia allaahu canhu markuu islaamay hooyadii oo da'ah gaalnimada weli baaqi ay ku sii tahay markaasuu abaa hurayra nebiga u yimaadaa calayhi salaatu wasalaam markaasuu nebiga cilmiga ka bartaa haddana hooyadii buu u tagaa uu u soo khidmeeyaa mar allii markuu u tegana dacwaddu u bandhigaayo risaaladdu u bandhigaa markaaba iska diidaayo tiraahdaa ila dhaaf diintaada anu ma rabi diintaadee maalin maalmaha ka mid a abaa hurayra allaha raalli ka noqdee isagoo lilmadu ay ka yaacaysa buu nebiga u soo galay calayhi salaatu wasalaam markaa buu nebigu ku yidhi yaa abaa hurayra waa maxay oohintan maanta maxaa ku elood la ooyeysaa ii sheeg wuxuu yidhi yaa rasuula allah hooyaday waa mushrikad oo gaalnimadiibay weli iyo shirkigiibay ku sugan tahay mar kastana waan u bandhigaa risaaladda iyo tawxiidka waan u bandhigaa way idiidi jirtay laakiin maanta hadal aan u adkaysan waayey bay igu tidhi buu yidhi oo hadalkaa waa maxay hadalkaa waliba adigay kaa tidhi adigay kuula jeeday hadal xun oo adiga aanan kuu qalmaynin ayay nebi allow adiga kugu tilmaamtay nebi baariya ayaa tahay oo barakaysane u ducee hooyaday ilaahay inuu ii soo hadeeyo markaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuu gacmaha cirka u taago wuxuu yidhi allaahumma hdi umma abi hurayrata abaa hurayrahan hooyadii ilaahow soo hadee abaa hurayre hooyadii ilaahow soo hadee deedna abaa hurayra radia allaahu canhu wuxuu yidhi anuu ducadii nebiga calayhi salaatu wasalaam bishaaraysan in la ii aqbalay ayaan orad isqaaday buu ise sii daayey deedna markaan usoo shanqadhaydii markay maqashay ayay hadasho waxay tidhi ha ii soo gelina dibadda joog waan istaagay waxaan maqlay markaa biyahay ku maydhanaysay shanqadhoodii sawdkii markaasaan nidhi way maydhanaysaa maasha allah markaabay tidhi ii keen maradii baan u dhiibay soo gal shahaadateynka ii qaba bay ku tiri waan islaamayaaye u laqinay isagoo ooyaya buu nebigu u yimid sal alla alay wasalam oohinta niminka waa farxad maxaa dhacay abaa hurayrow yaa rasuula allah ducadaadii ilaahay waa aqbalayo hooyaday way soo islaamtay buu yidhi sidaasay saxaabadu ahaayeen laakiin innaka maanta ilaahay waa inoo nicmeeyey haddaan abtirsanno
labaatanka oday soddonka oday aad ku abtirsanaysid hal oday oo gaala laga heli maayo jadka jad waxaan dadkan ka soo jeedin wada muslimiin oo wada shahaadanayay oo qaarkood inagay naga tawxiid fiicnaayeen oo naga diin fiicnaayeen oo naga dhaqan fiicnaayeen oo naga dadnimo fiicnaayeen oo ducadooda ilaahay aqbalayay tabaaraka wa tacaala oo waxaad laga yaabaa inaad ka soo jeedid dad xalaal mirada oo dhaqan wanaagsan leh nin culimada muslimiinta kamida oo inuu yahay baan u maleynayaa masri ayaa tawaasul al-ijtimaacigan ban ka daawaday maalin lajnatu tahkiim wadannada Scandinavia wadan kamida ayuu musaabaqada qur'aan buu markaa ka qaadayay waxa dhacday markaa wuxuu yiri waxaan idhi Sweden ayaa ka socda yar Soomaaliya soo kacay buu yiri waan yaab Australia ayaa ka socda oo quraanka musaabaqada uga qayb galaya waa Soomaali buu yiri America ayaa ka socda waa Soomaali London ayaa ka socda UK waa Soomaali wuxuu yiri ma garan kara buu yiri xidhiid baa jiray buu yiri xidhiid waa hadalkan ku ta'athuray aad ay maartaan ay taabtay wuxuu yiri maaha innika buu yiri laga yaaba aabayaashiin dadkaad ka soo jeedaan laga yaabaa inay jirto sir iyo ka ilaahay u dhaxaysay waa waxa ilaahay quraanka inoogu ilaalsanaya weeyaan bifadlillaahi azza wa jalla wa bikaramihi meel badan oo adduunka aan maray oo safar dacwadeed u maray masaajid kuma tukado ilaa imaamka salaada tujinaya waa Soomaali qaariga salaada tujinaya waa Soomaali marka nicmada ilaahay nagu galadeystay nicmada al-hidaaya nicmada al-iimaan wal islaam nicmadaas marka han qadarino oo ilaahay han ugu mahadino oo han ku shukrino oo nicmada dhulka ha dhigin ha dayicin meel kor u qaad waxa ugu qaalisan ilaahay adduunka dusheeda uu dadka u siiyo waa hidaayadii baan haysanaa marka nicmada ilaahayna siiyo waxaan u baahanahay inaan ilaalsano oo ku amal fallo oo ubadkeena barno oo inagu diinteena barano oo inagu diinteena ka shaqeyno waa saddexda diintu ay ku ilaalsanto waa saddexdaas al-ilmu wad-da'watu wal-amal al-ilmu wal-amalu wad-da'watu ilayhima cilmiga ina diintaada barata waa fariidatun ala kulli muslimin wa muslima ina diinta aad taqaanana aad ku amal fasha waa qiyaamaha la isweydiin doona wal quraanu hujjatun laka aw alayka quraanka iyo diinta ilaahay ku siiyay maaliga qiyaamaha ama xujjo kugu furi doona ama adigu quraanku xujjo ku noqoni doona as-sawm wal qur'anu as-siyam wal qur'an yashfa'an lil 'abdi yawm al qiyamah yaqulu al qur'anu منعته النوم في الليل فشفعني فيه ويقول الصوم ويقول الصيام منعته الطعام في النهار فشفعني فيه حديث معنيه سوها النبي وكيلها لبا قيامها وشفاعات قاضيا لبو صومكنا وشفاعات قاضا قفك الصوم جري ووحو كورنا يا ربي أدونك دوشيدي مالنكي أيا شهودي سكربه إرجان هي إله إرجدا يقبل بورنا يا إرجان وهاي quraankuna waxa uu leeyahay habeenkii buu kici jiro akhrin jiray ilaahu shafaacad ergaanu wahe ergada ay aqbal buu isaguna leeyahay quraankii marka hadda diintan ku amal fasho maalinka qiyaamaha diintu iyada ku shafaacad qaadi wad-da'watu ilayhima iyo in dadka muslimiintana barashada diinta loogu yeedho salaada loogu yeedho gabdhaha u yeedhaan asturka loogu yeedho dhaqanka wanaagsan loogu yeedho haddaad adigu daaci noqonood ummadda khayrka ugu yeedhin adigaa lagu yeedhi ad-da'watu ila allah fariidatu sharciyyah wa daruuratun bashariyah waana min asbaab al-hidaayah wad'u ila rabbika innaka la ala hudan mustaqim nabi maxamed alayhi salatu wasalaam baa ilaahay kulaha dadka xagga rabbiga ugu yeedh hadda dadka xagga rabbiga aad ugu yeedhaysid dariiqii mustaqiimka hanuunkii baad dul saaran tahay baa nabiga lagu yidhi dacwadu markaad ummadda khayrka aad gaadhsiinaysid waa min asbaab alhidaaya waa asbaabta aad ku garan karaysid nicmadda ilaahay ku siiyey qadarkeega marka nicmadda ilaahayna siiyey islaamnimada han ku shukrino ilaahayna han ugu mahadnaqno meel kale indhaha u taagtaagin عز الدنيا والآخرة هذا دون تدين هذا هناك ابن عباس
allah raalli ka noqday isagii abiiba wuxuu yidhi cibaadada iyo diintan iyo khayrka ilaahayna siiyey hadduu qofku ku dadaalo oo ilaahay xidhiidh fiican uu la yeesho oo cibaadadiisa salaadiisa laga aqbalo 5 fawaa'id baa adduunka dusheeda ilaahay ku siiya nuurun fi lqalbi وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق حداد عبادة هذا طاعة هذا دينة إلهي كسي رغن أي كان نقطات كل رغنته شنتا نعمضات بأدونك إلهي كقدر سينيا شنتا نعمضات نور في القلب قلبك إلهي نور كو قلنا يا نور وضياء في الوجه وجهك أنا افتين باك بحا يا مر والبا قف بشاش وفرحات بدن بعد نقول إيسا وبلا استرس أياد نقول إيسا وقوة في البدن جلك أنا إلهي قوتي حوق بقلنا يا وسعة في الرزق أرزاق هذا إلهي وقوة سعنا يا ومحبة في قلوب الخلق خلقك أنا جعيل إلهي قلبي قد قلنا يا شنتا نعمضات لقو مهل العق لقو مهل أقوانتان أدوية مادي لقو طلحتقو لقو مهل قبيالد لقو مهل منصب ابن عباس مفسر القرآن حبر هذه الأمة أيا كوشيغا يا أو كله هدي إلهي أذيغا حجير كيني قد حي أوهاغا شنتا نعمضات بأدونك إلهي كوكسينا يا نور في القلب قلبك والنور نور كقلبك ومحي وعندها قلبك يا كفر ما يا وعندها لغو أركا خالقة يا مخلوق فرق محا أدحيا أدويدا قابا يا آخرة واسعة بدن له فرق محا أدحيا طاعة إلهي يا معصية فرق محا أدحيا أشياء يا ماتريالك يا صلاة يا عملك وناكسن دفرن فرق محا أدحيا إسلام نمدا يا قبيالة فرق محا أدحيا والنور كاللغو أركا ونور القلب ويان وضياء في الوجه وجهنا افتين باك بحايا حسن البصري الله نحرسته عالم من علماء السلف هذه الأمة وتابعين أيو كمدها وجهيس أسمر اللون مدبك الناس وكلا أيو لها وجهيس افتين باك بحجري سؤال بالويديو اللغو يري وجهاك افتين باك بحا محاد سميسان نوشيك وحو يري ساعدها دتك أي هردان أيان إله إلا مناجودا بودانيكو ساعده وقت السحر وبالأسحار هم يستغفرون بإلى هيدي مؤمنين علامات كاللقوا أماني وحا كمدا وقتك السحورتا ووقتك غفلتو أي بدنتهي ووقتك الشيطان قفك ودوشي سكوير هذا هبين دير بعدوش هذا اسكجيف أيان كعاب ودا ساعدها بان كعاب دين إلهي بان لمنا جودا مركاسا لويري حدنا مجلس كاغن مجالستك لو كدوين هي ومحوكو كدوين ها لويري يوري waxaan arkaynaa majliskaagan madaxda kula fadhiisanaysa awlaadii madaxdu ay dhaleen baa ku dhageysanaysa maalqabeennadii baa ku dhageysanaya sidee markaa ku dhacdaa lagu yidhi inay dadka shurafadu ay hadalkaaga iyo khayrkaaga jeclaadaan waa ninii sheegayaa buuhi taana jawaab baan niga siinayaa waxay haysteen baan u daayey waxaan haystana waa u baahdeen buu ku yidhi waxay haystaan maxay haystaan madaxdu adduunyadii bay haystaan maalqabeennadu warqadee lacag ay haystaan madaxdu mansab bay haystaan maalqabeennadu lacag bay haystaan farahaan uga qaaday waan u daayey anu xagga ilaahay baan u jeestay xagga diintaan u jeestay cilmiga ilaahay i baray ayaan ummadda intoon meel u fadhiistay shaqadaydu waxa weeyaan dadka iyo ilaahay baan isku xidhaa maadaamaan ilaahay ku kalsoonahay waxaan haystay u baahdeen markaa iyo kii waayo ninka muslimka nicmadda uu haysto waa nicmad dadkoo dhan u baahan yihiin bal dad muslimiina maanta waxaa ka dhaadhacsan dad muslimiina waxaa ka dhaadhacsan ma taqaanaan gaalada lagama maarmi karo horumarkoogaan u baahannahay aqoontoodaan u baahannahay sistamkoogaan u baahannahay la'aantood lama noolan karo waxaanad ogeyn waa run aqoon hadday leeyihiin aqoontooda ka soo baro laguma diidano system fiican haddaad ku aragto iyagoo ku dhaqmaya wixii diintaada islaamka aan waxba u dhibaynin ka soo qaado waayo nebigeennaa noo sheegay calayhi salaatu wassalaam nebigeennaa saxaabada ku yidhi war umuurtiinna adduunyada ninka iga aqoon badan buu nebigu ku yidhi laakiin waxaanad ogayn adigu oo kaa maqan gaaladu sababtaaday ku nool yihiine adigu iyaga sababtooda kuma noolid
مسلم كسببتي سيأدوية كسعوتا مسلم كأشهادنا والروح ذي عالمك بني آذنك الروح ذي سهدي كبحضو جلكني وميد ميدنا والله اسكا آسا روح ذي عالمك كسعودا ما تغانا والإسلام إن الدين عند الله الإسلام لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله في صحيح مسلم وحو نبيك كل شيء دبيل إنك إيمان دونت من قبل الشاب دبيل قبول لأن مرقاسا قف كستأو مؤمنة أما مسقال ذرة وحي إشو أركت وحي أغير أو خيرة أما إيمان قفك قلبيس وكجرب نبيك يري دبيشاس إنتي قشو سنكي أفك إنتي كقشو أيو أدي من يابو نبيك يري حتى متكين هدو بور علوش يدا وكقل لها دبيشا إنتي كدب قشو أي روح لك سوق بو نبيك يري قف مؤمنة أدونك كوهر مايو دبيشا سابو من انت أدوية كوضا رفع عيسى فلا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق مع النبي يقولي دتك أدوية وقش شربدا أي عالم كوسو هاري دونا كواسو وناقنا آن اسفرين حماهنا آن اسكريبين أرزاقتنا رنع والبلغة دقي إبليس بس كوسو صوري دونا أو أورن دونا أنك ما يدي أجيب إيسان أو محان أمر إيسان هنكو أجيبنا بيكو أورن أيام وحو أورن دونا أصنام تدبو عابدا كواسو أصنام تعابدا يبو النبي يقولي أو إلهي غيرك عابدا أو منكر كنا ميل والبقوية الله أيا ساعد قيامته كل عدون تابو رسولك يقولي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سعد رادد ولا ليال مسلم أقو عالم كان إنكو إنكو تاقين يهدتك لك كوما تاقنو أذيك الروح دي عالم كان محامرك على قربة إن العدو إسلام نمد هذا موجسة لقربة إن إسلام نمدو كان نقون شيغشو أي كان نقون تمارك تاني كو وايك دقن كاغا أمدو أركيسا ودن كانت كل نوشيين إنكو خاصة ددكينا أولكن جوغا إيه ددك قربها جوغا وعدي قادقي سنة يبا صلاة دا تكوني سددك قالوا ما أركان صونك آت صومي سنة ما أركان حشكات قدني سنة ما أركان أمك إنت نلقلين وحابكو قرن ما أركتاني ممنوع قف عن مسلم هين ما بقالك كربا زكاة ديبي سنة قالوا النصيب كمالي سديت السنفي الزكاة اللصينيو وادتك مسلمين تلوغو تلقلي marka hadii salaadaadi gaaladu aynan arkayn soonkaagiina uunan arkaynin xashkaagiina aynan arkaynin dadka gaaladu marka maxay arkayaan dhaqankaaga marka arkayaan seed u dhaqmaysaa islaamnimada ilaahay ku siiyay ee uu kugu galladaystay ma ka muuqata adiga mise magacu ma ka tahay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam makka markuu soo galay dhinac walba ciidan buu ka soo gashay أفر كن أي الله قياسا مركا دتك مقالة مكة كنولا قريش لقيه النبي جنه الزوج سدين مركا أبو النبي كويدي ماذا تظنون أني فاعل بكم حاد ما أنت إجمع لين سنة نقول سمين النبي يقولي قريش وحي النبي قد يبغى يستن لقيه هنا وقرنته بلال بيد بين عمر بيد بين أبو بكر بيد بين ونبي محمد بيد بين ما ديرين 6 سنة كهر 6 سنة كهر به قياستي ما حد لين إنسان ما أنتنا نقول سمين حد يقفل أنا إنسان هل مركلي أنت صداو يجن بيقول هذين وحن كامل لين إننا خير وحنو أرجنا إننا تهي ولا الك يجي وناك سنة ولا الك يجي وناك سنة ونور دلي مركب النبي كويري أنا قلنا ما أنت وحن استاجا موقف عجيبة موقف كي هل كي النبي يوسف ولا له وقحوسية مركا ويمادين إسقوا وزيرك مالية مصر أيو كويري لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ما أنت وحلي نقا أرقوسنا يا مجرتو إلهي دنبقينا هدافو كوانا حريسك ونا حريس بدن وإلهي سيدي نبي يوسف ولا له ولا دغمي أيانا نقول ما أنت لا دغمي أقل الذين قلبوا النبي يقول آمن باتن والنبت قل يا برسولك كويري ورأيت الناس يدخلون في دين الله ما ينقون أغلالكم ما ينقون رير انتي أبحين أي نبي صف أصوغلين يكو أشهدنا يا الله وما لنت
وخالد يدي ما أنت ومالنتي هلبك ومالنتي قريش لقوقين يي أنصار ساسيد هذا أنصار مركب النبي يقول مي عباس وش أنصار ما أنت مالنتي دتك لقورع عيل اللين يماها كل ما أنت ومالنتي نحرست وما أرسل naxariistaasaan u baahannahay maanta islaamnimadu inay naga noqoto dhaqan ujeeddo kale maaha waxa lainoogu yeedhay nimanka akhyaarta ee nagu dadaalay ee kulanka inii qabtay ee culimmadana meelo badan uga yeedhay ku soo casuumay inay nila hadlaan wallaahi ujeeddo kale ma leh waxay leeyihiin keliya sidee diintani ay nolosheenna u timaadaa bas marka waxaan nagula dardaarmayaa nafteedana kula dardaarmaya inaan dadaalkaas ziyaadino ducada badino diintu ay naga noqoto maaragtaane ku dhaqan guryaheenna ubadkeenna gabdhaheenna diinta ku ababino insha allah dhahada hada wabillahi tawfiiq wasala allahu calaa sayidina maxamed asalaamu calaykum waraxmat